بسم الله الرحمن الرحيم داوديال kusoo dhawaada meel kasto idin caalamka joogtaan barnaamijkii Afkaadha Show qaybtiisa ila qosolka ahayd on maanta idin kusoo gudbin doono sheekooyinka ay nala wadaageen daawadayaasha ka falceliya barnaamijkan kadaata ila qosolka ah waxaan idin soo deenaynaa sheekadan u horeysa oo inala wadaagay daawada kamid ah daawadayaasha wuxuu yiri waxa iigu qosol badnayd buu yiri Cabdiraabiyow ninba wuxuu yiri baalkan horta balwadu waa wax dhib badan sayd Soomaalidu waxay aad u isticmaashaa balwada qaadka sigaarkana balwadu ma taqaano qaadku marka waa dhib badan yahay ragna waa ka tan badan yahay ragna isaga ka tan badan qaadki marka show ninku habeenii ugu horeysay baa qol yar intuu isku soo xiray yuu kaliya hoosta ka jabay qaadki baa marka show ku dhacay xilli wuxuu gaaray intuu kululaado oo kuleel dareemo madaxa iyo dharka iyo garbaha iyo isgaran waay wuxuu marka waxa ku dhibaya waa dharka iska saar ninkii mariyay buu saaray dharkii oo dhan waa mud macalbumada yareed oo soo saaray wuu sii qaylay isagoo qaawan wuu ku dayn waayo kuleelka sidii lama waxa mirqaan watee kuleelka hadana qaawanidii ku dayn waayo xilna mad isku soo rogtay biyo qabow marka qaadku baloomu saaray ninkii muuna xusuusanin dharkii xidho oo musqusha aad oo marka musqusha banaan baa loo aadayaa fadhi baa la sii dhaxmaraya isagoo qolbu degan yahay ninkii wuxuu is yiri marka inta ayr musqusha aado si soo qaboojiso qaadka halka ka sii wado isagoo muriya gacan u soo baxay musqushii baa aaday uu qabeystay haween marka wuxuu sii maray fadhiyo oo sheekaysanayo fara badan oo reerka oo waxa de waa la yaabay show ninkii waa tagay soo qoystay show hal baloon baa u soo saxmay kolku biyo isku daadiyay wuxuu ogaaday halka baloon markuu soo marayay meesha gabdhaha agtooda inuu qaawanaa laakiin muuna xasuusan inuu hadda saacadan wali qaawaya inuu dhar qabiis ma laakiin markii hore inuu qaawanaa buu xasuustay hal bool gabdhii buu tagay wuxuu yiri raali ahaada markii dhaweedan meesha marayay qaawanaa adoo inuu saacadan uu qaawaya aad iyo aad uga mahad celinayna daawadaha sheekadaas horta qaadka qasooyin badan u leeyahay horta qasooyin fara badan ka haya laakiin hal ila waan aan dhihi lahaa daawasha u gudbiyo qisada waxa ka dhacday qaxootiga waxay qaataa marka raashin oo hay'ad ay siiso oo saliid ka mid tahay wax kaar iyo marka cid wada jikiyar ay qaba marka jikadii marka saliid iska dhigtaa marka ninka jikada horsigu qiilay marka suuskiga qiilay ma ku marqaamay wuxuu damcay suuqsigal biyaha qaado saliid marka bir bay ku jirtay mise caag bay ku jirtaa shanaal ugu soo qaada lagu keenaa saliid cid iska qaato marka musqusho la gal marka way saleeyay marka musqusho galay buu suuq isku meera waxaan go'in maxaa u dhaa marka maluluq malaqo markuu yaabay uu yaabo ku dhawaxan masuuf waa saliid xaafado uu soo noqday inuu iska aamuso bal maamadu sheegay hooy saliid ku qaldamee biyo aad buu qaadku dhib badan yahay marka waxaan rabnaa daawadaha labaad ee nala soo wadaagay wuxuu nala soo wadaagay qaab cod ahaan ah waana u mahad celinaynaa waxaan idin ciyaaraynaa codkii ugu horeeyay ee ay daawadayaashu inala soo wadaageen bal nala dhageysta السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أفقد عاد بنكو سلام يا أبي شو جاجبة محي هذه الشركة كوبات محي هاي وحيكون عاد يقول عن قرابنا هاي ومية جلاجة كاني وحكينا ولا الكيسو كوين وكتجي مقالة جارسة مركزوك حي ودن كيف قصوك حي مركي مريان دولو يا وحيسكور كان أصحاب كلو رجال سامشي marka maqaayad bay galeen waxay dalbadeen qado moos baa loogu soo daray wiilkii marka miyiga laga keenay wuxuu ka cabsaday maadaama ay marti kale la joogto inuu mooskan wuxuu yahay walaalkiis weydiiyo wuxuu is yiri marka ragganba way cunayaan bal waxaan aad cuntide fiiqo markuu fiiqay oo rag u fiiqanayaan u fiiqday meesha soo saartay yaa wuxuu siinay waxaan amaad ku dhimatay laf ku dhex jirtaa bal laf ka baad marka hore intaada cunay tuujiyay dhowr meelood buu ka kala jaray wuxuu arkay inuuna lafi ku jirin
sidii uu marka ku cunay wuxuu yidhi marka waxaan niyeystay inuu yahay qashinka magaalada laga cuno sidii baan ku cunay buu yidhi mooskii magaalo markaan soo galay buu yidhi marka waa wixii iigu yaabka badnaa bay ahayd qisadii qabsatay buu yidhi iigu yaab badnayd wixii oona ninkii weydiin karin iyo wixii oona garanaynin wax sida loo cuno iyo wuxuu yahay midna laakiin aan tijaabo iyo nasiib ku cunay bay ahayd taasi waa sheekadii mooska oo ku dhacday wiilkaas talabaad gabaraan saaxiibanahay bay ayeydeed baa waxay ka imaaday iyadana miyiga waxay aragtay TV bay u daareen laba nin oo hindi ah isfeedhayso oo dhiig badan ka daadanayo markaas waxay tiri ayayo deemad kala qabatiin wiilashan isku dhintay gabdhiga marka waxay ugu jawaabeen ay iska dhaaf wala kala kar waayay haystumaane duqdii xilli duhur ay qadana wala soo diyaarinayay way iska baxdo banaanka ay fadhiisatay waxa la yiri marka ay kala qaday maxaad banaanka u tagtay kaas waxa jiro waaba maanta berri baan qadaynaynin wax gaadho baxaya haduu jiro hala igu daro saan rigayga ugu laabto oo maxaa dhacay dhiigi way uray ani dhanba waan qatanahay bay jiro wax dambe oo magaalada leedahay inuu cuni maaye yaadhi hala igu daro aad u badsan tahay gabadha sheekooyinkaas inoo la eegto waxay ahayd waxa la yiraahdaa gabadhaas waa gabadha daawadayaasha kamid ah waxa la yiraahdaa Aamina Sheekh Cabdullaahi Aamina aad baan kugu mahadcelinaynaa waadna ku mahadsan tahay ka soo qaybgalkaaga aad nagala soo qayb gashay barnaamijka Avocado Show daawadayaal barnaamijkeeni kamid ah ku weydiyo labada sheeg mid baa qosl zaid u leeyahay waatay mid mooska lagu tuujaa qosarka disha moona toojinin dhowr meelood ka gooyeen in la ku dhex jirto waxan horta ninku aqli badan baa dadka miyi ka yimaada aqligaas ay leeyahay hadii hadda ninkaasi uu magaalo ku kor lahaa oo mooska ugu horeyn lahaa ama uu iska wada liqi lahaa ama uu iska deyn lahaa laakiin ninkan maskaxda ku jirtay dhowr meelood ka gooyay si laf haday ku dhex jirto waxan la horey moona u arkin oo ugu dhimanin kale magaaladu way xun tahay magaaladu way qalaad kula soo gasho waxyaabo badan oo arki jirin baad si loo cuna garan waayay oo gabadhii hadda shaaha karisay ee intay istirishaha u dadaal catarka ku dartay shay عارفه بيستري marka waxay aragtay shuu magaala la arkano sanjibili balay darka marka dharka oo la dhaqo in boorsada hadana barfuun lagu dhufto oo la sii gooneeyo marka wax kasta oo la wanaajinayo in cadar loo raaciyay u qaadatay markaas ay shaahi bay kariso markaas ay dhaladhan ku dhameysay baf magaalada way iska dhib badan tahay nin waxa jira isagana aan aqaano oo aniga fogeyna saaxiibanahay iyo nin kale oo isagana sidoo kale isaguna aad iyo aad aan saaxiibo u nahay labadaba magacooda hadii loo baahdo waa la sheegi karaa waxa la joogay xamar nin baa marka labada nimida magaalada ku soo horeeyay xaafadu deganeed oo magaalada ba ku dhashay ninna wuxuu ka yimid xaqii wadankii iyo kor kolkuu yimid baa ninkii duurka ka yimid oo ninkii ag taagan yaa ninkii wuxuu arkay barfuun isku dhufanaya ismarinay عصرنا ويبحى خميس ولا بحى مقدشة ماشي واحد يلا إلا بحال الربو يحرك يسوي نكوا عذر بف 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 تسكوي ويروح يرد جون بارك حالا ده واحد حيري برفون بالا ده بس يري أنا يمري هذا بيقول مرك يعني أفكار نكر مرك وكل ياري وكل عطري سنة يا ها بيقولوا أفكار وقول فتاي بف 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 ninkii intuu una liqin xaaladda ina ku xumaanin ninka ay u dhigay inay hooyadii dishay wax ka hore hoosta ka baxay ninkii qiiq oo kalku liqay hada uu bedelmay barre oo loo yimid ninka indhaha cadeynay war maxaa kugu dhacayo wixii bay siiyay buu uu tilmaamay ninkii biya la siiyay waa la daweeyay caadi buu noqday hada waana waxan waa chemical ninkii aad caadi buu noqday ninkii waxa loogu magac daray barfuun magaciisa gadaal laga raaciyay barfuun hada caadi magaciisa barfuun baa la dhahaa أنا قصة أوي أبني أو عنتها كوكنتين نانتو وكي مركي قحطي كان دبدوجين لو سميناي بعد عادي تركي مركي ديوادك سوق حي مركا يو أنت أوتكتو راشين بيوي يا ترجوان الله مكتك ما عدان ومكاس لوقد صومالي وما قرناي من بفرتك أنا ترجوان ولا ما بس كان أوشة قال هاي راشين كسيدي لو كرسنايو بركان إنه بري هاي جليد إنه جليد هاي بيلودر ولا لاقو عتني عن جار لا صباح عن جارته هاي مشارده إني مشارده هاي وكل ولد ممكن مشارده وكذا بركين مشارده وكذا مرك بتجي وعسي مركب واحد قال بس بركي وسيدك هاي شو ما نقول عمر ويا حنوسدين ستارك سوي لو ما بركي بيقول قابك مشارده ها مشارده وكرسده مشارده إنه بربو ودي وكل مرسي مرك
ninka luqadda dhibaysa ha farta muska taago la ilaa dadkii uu leeyahay marka dawa qaldan buu qoray waxyaabahaas marka ugu yaabo dadka daawadayaal guud ahaanba barnaamijkeennii baynu intaa kusoo gabagabaynaynaa tan iyo intaan barnaamijkan oo kale ay isugu soo noqon doono waxaan idinkala tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waxaan intaa idin raacinaynaa wixii talo tusaale ama sheeko ah ee aad nala wadaagaysaan kugu qosolka badnayd intaad adduunka ku noolayd waxaad inoo soo dhigtaa ciwaanada shaashada ka qoran ama commentiga youtube-ka Qari Jiqo channel aad iyo aad baan idin salaamaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh